caawa waa habeenkii saddexaad ee tartan aqooneedka xarunta barbaarinta carruurta booliiska Soomaaliyeed. taariikhduna ay tahay 23-ka bisha afaraad 2021 waa habeennimo sabti soo gelayso. waxaa caawa halkan ku tartami doona labada group ka wada tirsan aqoonta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la kala yiraahdo ilayska dalka iyo sidoo kale taliska ciidanka booliiska. tartankan sidan quruxda badan u socda waxaa taabagelinaya hay'adda IHAD oo ah hay'ad islaami ah oo ka shaqeyso dalka iyo dibadda. waxaa lagu tartami doonaa 8 maado asaasiga ah ee lagu barto koowaad ilaa iyo fasalka 8aad dugsiga hoose dhexe. waxaa igala shaqeynaya tartanka oo garabkayga bidix fadhiya gudoomiyaha tartanka ahna madaxa isboortiga xarunta Professor Cali Mawdalha. sidoo kale garabkayga midig waxaa fadhiya macallin Cabdallah oo ka tirsan guddiga ahna macallin xarunta wax ka dhigana maadada xisaabta. macallinka ku xiga waa xubin ka tirsan guddiga macallimiinta xarunta ayuu ka tirsan yahay Cabbaas Cali Mawdalha ayaa la yiraahdaa waxa uu dhigaa maadada technology-ga. waxaan si toos ah ugu gudagelaynaa tartanka. su'aasha ugu horeysa waxaa lagu bilaabi doonaa gruupka ilayska dalka. su'aashu waa tarbiya islaamiya isku diyaariya 1 daqiiqo ayaa la siin doonaa. jawaabtu waa in lagu helaa daqiiqad gudaheeda insha Allah.